wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa munaasabad ballaaran u qabatay ardaydii dugsiyada sare ee gobolka Togdheer ee sanadkani kaalmaha hore ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Soomaaliland isla markaana waxay ku abaalmariyeen dadaalkii iyo guusha ay u soo hooyeen gobolka Togdheer munaasabadani oo ka qabsoontay jaamacadda Burco ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco salaadiin cuqaal maamulayaasha dugsiyada sare ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashi ayaa faahfaahiyay guushii sanadkan gobolka Togdheer uu ka soo hooyay imtixaankii shahaadiga ahaa ladan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo waxbarashadu waxa uu gudigeedu yahay in la dhiirigeliyo ardaydii sanadkii dhamaaday ama sanad dugsiyeedkii hore ka baxday dugsiyada sare ee fasalka afraad oo imtixaankii shahaadiga ahaa kaalmo mugle dalka ka galay kana dhex muuqday imtixaanadii si qiimo lana tacabkoodii uu muuqday waa ogtiin sanadkan imtixaankii la qaaday uu ka duwanaa imtixaamadii hore runtii imtixaan aad loo ilaaliyay oo galaasiyada lix arday la fadhiisiyay buu ahaa ardayda waxaan leeyahay marka ugu horeysa hambaliyo salaadiin cuqaal maamulayaasha qaar ka mid ah dugsiyada gobolka iyo mas'uuliyiinta jaamacadaha Burco oo ka mid ahaa gudoomiyaha jaamacadda Golis ayaa u hambaliyay ardayda gobolka Togdheer oo mahad celinaya gudoonka waxbarashada iyo jaamacadaha oo guushan xaqiiqatan qayb ka ahaa waxaan kaloo mahad celinayaa ardaydii tacabkii la geliyay sida fiican uga jawaabay natiijada qiimaha keenay 4-5 sano ama 6 sano ugu dambeysay kamu madhayn gobolku kaalimaha sare kamu madhayn numberka ardayda ee studentiska ah ee gobolka Togdheer uu helay waa 640 arday baa helay sanadkan ku guuleystay gobolka inoogu soo dhow waa awdal 145 buu helay gobolka inoogu soo xiga inaguna 640 baynu helay oo ah maanta haddaynu dabaaldegnayn anagu waxaan leeyahay dee barrina waxaynu doonaynaa inaan laynaga qaadin koobka guusha keenteen ilaahay ha idinka abaalmariyo horu socodkiinana ha ku biirto educationku waxa weeyaan waa higsi marka higsiga ku jirtaan waxaan filayaa inaanu ku ekaanin maanta oo aad secondary ka baxdeen ee uu noqdo mid dhammaystiran oo hore u socdo runtii waa maalin farxad leh oo guul ah inaynu aragno in aynu aad uga horeyno gobolladii kale aad baynu uga horeynay imtixaanaadka aad baan ugu mahadnaqayaa si gaar ah ugu hambalyeynaya gudoomiyaha waxbarashada gobolka intii uu joogay wax badan baa qabsoomay si wanaagsan ayay u socotaa waxbarashada hoose dhexe iyo saraba sidoo kale waxaa soo kordhay isku xidhnaanta jaamacadaha iyo dugsiyada sare jaamacadu qayb bay ka ahaayeen 2 sano ee ugu dambeeyay inay support gareeyaan oo caawiyaan Burco maanta waa nabad dadku isdhex galay wax xataa qaybsanaani ma jirto waa ilaahay mahadi wax badan baa gobolka u wanaagsan in lagu midoobo oo la tartamo wanaaga lagu tartamo aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaadba hambaliya leeyahay iyagana dhalinyarta dadaalay midhahoodii la arkay magacoodii la kor u qaaday magacii gobolka la kor u qaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa uga baryayaa guulays daba jooga guulay gaadhaan taa ku agaanin waxaan idin hambaliyeynayaa guusha aad gaadheen ee heer gobol iyo heer qaran iyo mid burcaba ah u soo hoyseen hambalyo magaca soo haysay ilaahay magaciina kor u qaado macallimiintii wax barteen ilaahay ha barakeeyo maamulka tacliinta kulligood Allah ha barakeeyo maamulka gobolkana Allah noo barakeeyo maayir iyo mid kaleba maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xaydal Jir ayaa iyana sheegay in gobolka Togdheer weligiiba hogaamin jiray dhanka waxbarashada 640 arday oo ku baxay waa wax rikoor jabin
halka ayaan dib uga noqonay aan ka sii soconno war reer burco markaynu nahay aqoon laynu kula tartami maayo min al-awwaliin wal aakhirin laynu kula tartami maayo reer burco hadday noqoto suugaan hadday noqoto geesinimo iyo raganimo hadday noqoto diin iyo aqoon diimeed hadday noqoto waxbarasho maadiya cid inagu gaaraysaa ma jirto gobolka togdheer waa gobolkii aqoonta waa gobolkii halganka aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa ardaydeena waxaan halkan uga mahadnaqayaa macallimiintii waxbartay madaxdii jaamacadaha ee aqoonta ardayda kabtay iskuuladii iyo maamulayaashii mahad cali goodir Ariel TV Burco.